tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaa xarigga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah. waxaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada Baraawe halkaas oo ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horeysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday 4,300,000 oo dollar. hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da'ay. maamulka magaalada Baraawe iyo hay'adaha maalgeliyay waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. haddaba sidee lagu dhisay garoonka? maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay'adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay'ado iyo dawlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii Sebteembar 2014 haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada waxayna si joogto ah weeraro gaadmo ah ula beegsadaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyay kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdullaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. waxa uu galka baarista uga warramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka. waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helicopter ku tagay aniga kula hadlaaya anagoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha aeroboorada aan geynay dhulku habboon inaan helno. hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahayn muddo dheer ay naga qaadatay. meesha lafteeda oo runtii uleys badan hadday noqon lahayd nimanka nabaddiidka ah oo dagaal badan nagula jiray miinooyin noo dhigayay 7 kilomitir balaas 1 kilomitir oo airportka iyo isu jira ambareese meesha la yidhaha 8 kilomitir ee meesha magaalada u jirtaa. adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan dhisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay. waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisayay garoonka. dhibaatadaasma waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen mise ilaalinteeda? bal wax yar iftiimi meeshaas. absolutely labada arrimood tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambaniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay. sababtay tahay waa xamar iyo Baraawe in loo safro oo jidkaa la maro dhibaato weyn bay ahayd. qolada AMISOM aan la kaashanaynay laakiin way adkaatay in safarka jidka Baraawe iyo xamar isku xiraba in la maraa adkaatay. mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka qaadayay markii jidka uu go'ay already oo AMISOM logisticadeed ee meesha tagi weysay. waxaa bilowday markab yar oo AMISOM ay adeegsanaysay kaasaa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambanigu ay saaranayeen. labadaa dhib way jireen. dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabaddiidka ah waxay dadaal badan u galeen miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas aeroboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayeen ayaga laftooda.
qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka koonfur galbeed iyo in kale sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaha xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyay xulashada shirkadda dhisaysa garoonka. Inkastoo saraakiisha kale ee koonfur galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda aysanna wax ka ogeyn. horta sidaadaba markii wax la dhisaayo kambariyada waxa la geliyaa wax la yiraahdo tartan ayaa la geliyaa dhowr iyo 10 kambari ayaa tartan loo soo geliyaa degmadan Baraawe in dhisaan qolooyinkaas kambaniga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buubaal ayaana ku guuleystay. laakiin su'aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise adu lukumaad lahayn? maya waan ka qayb galay. Nuur Cali Buubaal maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka. anagu tartanaan galnay maanan dhowr iyo 10 shirkadood oo waaweyn oo qaar international yihiin oo Indonesian iyo Emirates iyo ay yihiin ayaa tartan la galnay ayagaan ka qaadnay. marka baadina qandaraaska yaa idin siiyay idinka? anagu waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund. waa gartay laakiin maamulka koonfur galbeed door miyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan? maya. maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017 ama wixii ka horeeyay gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan? maba ogeyn ba anagoo soconno aysan ayagana ka warqabin aan meesha ugu tagnay. hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libaax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. xubnaha bulshada ee dhaliilaya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale. hase yeeshee mas'uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. waxaa kaloo su'aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba kor ha u kacee. hase yeeshee maamulka gobolka shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed. mar walba garoonka inuu jay noqday oo laami lagama fikirayni sababtoo tahay fanka ay u haayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnayd. weliba dalab baahi kala timid oo hadday noqon lahayd siligii, hadday noqon lahayd terminalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo airportka lagama maarmaanka ahaa lacag danbaa lagu daray oo xilligii anigu wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyo ayay ku filnayd. marka laamina warkiisa maba jirinba. waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhaba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay Nuur Cali Buubaal ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale. garoonka inuu laami noqdo go'aankeeda ma idinkaa lahaa? ma waxaa laydinkula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan mise kharashkaa kala go'ay markaasuu jay noqday? wax kala go'ay ma jiraan oo qarasha annaga kontraadinalisi airportka inuu jay noqdo jayga ugu sarreeyaana ka dhignay
waxaan ciyaalkan yararka ay social media soo geliyayaan maaha nin raashin oo UN ku shaqeeya loo soo diray inuu airportka testi gare wuxuu qoraal ku soo baxshay in ay ku tegi karto diyaaradda 37 marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin 4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah maxaad kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaanin waxa ay ka hadlayaan waa problem meeshaan waa bacaad oo 15 mitrs hadaa qodo bacaad la ku jire annaga dhulka inta qodna 1.2 oo dhagax soo dhigna markaas ka bacdi dhismo bilow annaga hadda asabubal investment in lot of sense we lost money in that airport money wax ka darana lost gareen nafaan lost gareen oo ka qaadsan adduunka jira garoonkaas waxaan dhisaynay 2 sano iyo dhowr bilood exactly hadda korka kama hayo laakiin 2 sano iyo wishii dhisay caqabado badan aan ka soo marnay baabuur anagala qarxiyey dadaan nooga dhintay waxaan ka dhaxdhacanay dhul aan dhagax lahayn sidaa la socotid Baraawe dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaalaa 18 kilomitir oo shabaab dhexdiisa waxay nagu kaliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo Ugandese iyo Soomaali isugu jira inta mobil saarina meeshaas geeno oo saa dhagax lagu soo daldal oo dhib badan aad u badan laga maro waxay nagu kaliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo maraan 2 baabuur oo kamid ah ay badda qaato galka baaristu waxa uu helay dukumeenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyay kharashka ugu badan oo u dhigma 23.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isa saaran ee dhulka laga dhisayay garoonka laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabaha iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Empreso kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.1% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka gaar ahaan dhabaha oo leeg 2 kilomitir iyo 2 wado oo ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabaha diyaaradda lacagta ugu yar oo ahayd 3% waxay ku baxday calaamadaynta dhabaha garoonka iyo cirifyadiisa mas'uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayay in dhererka dhabaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilomitir balse ay goor dambe midowga Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilomitir si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiilaadka u wada ciidamada AMISOM dokumentiga oo arkagalka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday 4,300,000 dollar dokumentigu waxa kale oo uu muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyay shirkadda 3,800,000 dollar ilaa hadda ma cadda goorta shirkadaasi la siin doono lacagta dhiman waxa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas'uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay dhowr milyan oo dheeraad ah bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami inkastoo goobta diistay ay ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda sida uu galka baaristu ka ogaaday ilo kala duwan haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaallo uu jilicsan yahay intaasi ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaaladu yeelato garoon horta sideedaba markii oo lambar 1 aad heshaa 10 ku fikiri kartaa Baraawe sida aan ka warqabno xaawi aadan ilaahay markii abuuray iyo hadda garoon Maxamed Siyaad Barre dawladdiisa dawlad caalami ah ama garoon loo helo hadda inay garoon hesho horta annaga aad ugu faraxsana ka aniga ahaan waa ku faraxsana garoonkaas allay lehe wixii lagu bixiyay qasaarad ay keeneen aniga ma oran karo aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna waa u dirna dawladda Soomaaliya hadda ka hor ra'iisul wasaaraha hadda markii ugu dambeysay xiriirka ka jaraan uu noo ballan qaaday midowga Yurub lacagta bixiyeen way noo ballan qaaday inay laami noo saarayaan
kuma qabno garoonkaas annaga. nuur cali buubaal maamulaha guud ee shirkadda buubaal investment ayaa isagana aan hordhigay qodobkaasi ku saabsan dhammaystirka garoonka iyo hadalka uu sheegay guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe. airportka meesha uu ku yaalaa diyaaradii waa ku degoohayaan dadku inta tagaana soo arkaan waa mid kale annaga shirkadaana siisay kontraad shirkadaas waxay kale kontraad siisay shirkad oo engineering ah ayay waxay siisay quality control iyo inay annagana daba taagnaad oo Kenyaan ah migrant qandaraaskeenna waxaa ku dhiman ilaa December inaan joogayno oo wax kastoo isbedel annaga ansaxayn kontraadi ku qoran. maxaad saxaysaa hadda oo hawlo ku dhiman? hadda waxay dhiman madistaan baa insaga jirnaa laakiin kontraadi systemka aan ku qaadanaa asaas annaga marka qof kasta oo airportka inuu ogaado ama xaaladiisa ogaado ama qiimeeyo ama ka talshan raba waa soo dhaweeynaa meeshaan deganahay waa soo dhaweeynaa meel kasta oo airportka ka mid ah tusay. mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii cilado ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka. haruun macruuf ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya soona diyaariyay barnaamijkaasi galka baarista oo halkaasi aad ka dhagaysanaysaan.